السلام عليكم كسودو دونيدا JavaScript JavaScript waa luqad programming ah oo ku oggolaanaysa inaad ku dhistid front end iyo back end front end waa wax alaala wixii ku muuqda ee bogga ama browserka kaga muuqda back end waa wax alaala wixii la xiriira databaseska ujeedka hore JavaScript wuxuu ahaa DOM manipulation oo ah elementska HTML-ka inay ku soo darto interactivity sida button clicks-ka iyo animation waxyaabo noocaas oo kala hadda JavaScript waxa ku dhisi kartaa desktop apps web applications oo ah front end iyo back end iyo mobile apps marka waa luqad muhiim ah inaad baratid ujeedka course-kan waxa weeye inaad baratid asaasiga JavaScript ama basics-ka iyo qofkii raba inuu diyaar garoobo framework soo baran lahaa marka waxa fiican intaan framework gaadhin inaad JavaScript baratid frameworks intooda badan waxay raacaan hal standard maadaama ay ka soo jeedaan hal luqad iyo best practice course-kan wuxuu khuseeyaa qof walba bilow ah qof walba aqoon hore u lahaa iyo qof walba raba inuu u gudbo dhanka frameworks-ka oo raba inuu ogaado basic JavaScript-ka course-kan waxaa idin socodsiinay anigu Cabdifataax Cabdilaahi waxaana inta badan wax ku qoraa PHP iyo frameworks-ka Laravel iyo JavaScript oo frameworks-keeda React iyo React Native waxyaabaha aad ku baranayso course-kan waxaa ka mid ah taxan dhanka midig kaga muuqda waxaana ugu muhiimsan ee la rabo in aad ogaasid waxaa ka mid ah ES6 oo ah JavaScript 2015 ama ECMAScript oo ah change-ga ugu weyn ama isbedelka ugu weyn ee JavaScript lagu sameeyay 1997 oo aynu casharkeena dambe aad iyo aad u mahadsantihiin billahi tawfiiq